ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaqyo isku mid ah waxay ka wadaan deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo deegaano kale oo la sheegay in ay kala wareegi doonaan ciidanka Itoobiya ee halkaasi ku sugan. Ila kala duwan ayaa waxay warbaahinta xuraasi u sheegeen in saacadii u dambeeyay dowladda federaalk Soomaaliya inay waday dhaqdhaqaaqyo xooggan oo arrintaas la xiriira, iyadoona saraakiil ka tirsan dowladdu ay bilaabeen in ay sii xoojiyaan dhaqdhaqaaqyadaasi iyo qaabka ugu fudud ee loo gaari karo. xubin sare oo ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya waxa uu tilmaamay in ciidan fara badan oo Soomaaliya tababar qaasa qaatay dhowaan ay soo gaari doonaan Muqdisho, kuwaas oo laga keeni doona dalka Turkiga. ciidamadaas ayaa loogu talagalay in si guud iyo si gaar ahaaneed ay uga howlgalaan deegaanada iminka ay joogaan dhinaca ciidanka Itoobiya, halkaas oo si gaar ah ciidamadu ay uga howlgali doonaan. sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya waxa uu tilmaamay in isku xirka ciidanka badda iyo kuwa bariga Soomaaliya in ay noqon doonaan kuwa si guud iyo si gaar ahaaneed u xoogaysta marka la eego qaabka ugu fudud ee loo sameynayo howlgallada gaarka ah ee lagu sugayo amniga guud ee dalka. warbaahinta xuraasi ayaa dabagal ku sameysay ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya ee loo daabulayo deegaano ka tirsan Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, kuwaas oo la sheegay in hadafkooda ugu weyn uu yahay in ay ciidanka Itoobiya ay kala wareegaan deegaanada ay ku sugan yihiin, maadaama ay mar walba imaan karaan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo Itoobiyaanku ay ku faragelin karaan gudaha Soomaaliya. waqtiga Itoobiyaanka joogitaankooda Soomaaliya ayaa u muuqda in uu sii idlaan doono, iyadoona dowladdu ay markaa sheegtay in ay diiradda saareyso ciidamo cirka ah iyo kuwa badda ah, iyadoo la sii xoojinayo ciidamada kale ee dhulka, kuwaas oo isku xirkooda muhiimad gaar ah u yeeli doona dhanka Soomaaliya. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa dhowaan sheegay in dowladda federaalk Soomaaliya ay wado qorsho iyo dhaqdhaqaaqyo weyn oo arrimaha la xiriira, isagoona wasiir Fiqi tilmaamay in dowladdu ay markaan diiradda saareyso in ay ogaato dhaqdhaqaaqyada guud ee arrimahaasi la halmaala. sargaal sare oo dowladda federaalk Soomaaliya ka tirsan dhankeeda ayaa waxa uu sheegay in ciidanka xoogga dalka iyo ciidamada kale ee dowladda federaalk Soomaaliya ay tababaranayso waa ciidamadii deegaanka iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedyada qaarkood inay noqon doonaan ciidan qaran oo awood buuxda u yeelan doona sidii dalkooda ay u ilaalin lahaayeen una difaacan lahaayeen, si mas-uuliyadda guud ee saaran ay u noqoto mid dhaqan gasha ama noqoto mid awood ahaan jiri karta marka la eego ka hortagga ciidanka wadamada dhibaatada Soomaaliya la doonaya inay ku sii jirto ee doonaya ama raadinaya in dhaqaalo fara badan ay ka sameeyaan joogitaankooda gudaha Soomaaliya. muddooyinkii u dambeeyay waxaa socday dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo dowladda federaalk Soomaaliya ay ku dooneyso qaabka ugu fudud ee loo gaari karo hadafka guud ee dhanka siyaasadda. geesta kale, Jimcaha maanta Muqdisho waxaa laga daahfuray markabka Turkiga uu soo diray Soomaaliya ee shidaalka qodaya, kaas oo markaan Muqdisho lagu soo dhoweeyey lagana sii sagootiyey si uu u bilaabo shaqada qodista dhanka shidaalka Soomaaliya. dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga mas-uuliyiin sare oo ka tirsan ayaa ka qayb galay munaasabad ka dhacday dekedda Muqdisho, iyadoona ugu dambeyn markabkaasi la soo dhoweeyey lana sagootiyey. mas-uuliyiinta sare ee dowladda federaalk Soomaaliya ayaa waxay tilmaameen in markabkan shaqada uu qabanayo waa markabka la yiraahdo Curadka shidaalka Soomaaliya ee shaqada adag ka qaban doona laba ka mid ah ceelashii shidaalka. waa saddexdii ceel ee sahminta lagu sameeyey lana ogaaday in shidaal badan uu ku jiro. waxaa geesta kale maalmaha soo socda caasimadda kusoo wajahan mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda Turkiga iyo diyaarado military oo dowladdaas ay leedahay, taas oo loogu talagalay inay keenaan qalabka casriga ee sahminta dhanka shidaalka dhulka Soomaaliya lagu sameynayo, taasoo ka dhigaysa ballanqaadyadii dowladaha Soomaaliya Turkiga in uu noqonayo mid dhaqan gala ama dhabooba, sabab la xiriirta in ay iska kaashanayaan soo saarka shidaalka iyo macaadinta kale ee kheyraadka dalka ku jira. Jimcaha maanta waa maalin u gaar ah dhanka Soomaaliya iyo Turkiga. labada dal ahamiyadda iyo muhiimadda gaarka ay ka helayaan: kow, waa Turkiga in uu awoodi karo meel ka baxsan dalkiisa in uu shidaal ka soo saari karo, halka Soomaaliyana fursadda ugu xusan arrintan ay tahay in ay heli doonto in ay dowladda federaalk Soomaaliya ay diiradda saarto in maraakiibta
ay fursado waaweyn u helaan soo saarka shidaalka guud ee Soomaaliya, taas oo ka dhigaysa in dowladdu ay markaan wado qorshe weyn oo ay ku doonayso soo saarka shidaalka iyo macaadinta kale ee badda ku dhex jira. Wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteena tan xigta warbaahinta Xuraansi ku daaw.